habeen wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada wararka idaacadda kulmiye qodobada caawana waxaa ugu dooran gudoomiyihii deegaanka Garis Valley iyo askar ilaalo u ahayd oo maanta lagu dilay qarax miino oo ka dhacay deegaankaasi madaxweynaha Puntland oo Muqdisho soo gaaray iyo kulamo gaargaar ah oo madaxda Soomaalida ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho waan laga dhexwaday beelo dhawaan ku dagaalamay duleedka magaalada Beledweyne oo fashilmay iyo dagaal mar kale ka qarxay halkaasi faahfaahin ka soo baxaya qarax lagu weeraray ciidamo ka tirsan Kenya oo mareeyay magaalada Mandera madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Puntland oo maanta lagu aasay magaalada Garowe shacabka ku nool xaafada ka tirsan degmada Howlwadaag oo ka cabanaya biyo lagu soo furayo xilli kuwii roobka dhawaan uu xaafadahooda buux dhaafiyay iyo xisbiga talada haya ee Mareykanka oo wajahaya mid ka mid ah culeysyadii ugu adkaa markale kulanti wanaagsan waa habeen Jimco ah Sabti ayaa soo galaysa 21 May 2021 warka waxaa soo saaray lana diyaara Yunus Duraan Cali mahadsanid Mawlid Xaaji Cabdi bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aan maqasheen oo faahfaahsan aan ku bilowno qodobkii koobaad ee warka gudoomiyihii deegaanka Garis Valley askar ilaalo u ahayd ayaa maanta lagu dilay qarax miino oo ka dhacay deegaankaas warkan waxaa soo koobaya Cabdiraxmaan Axmed Gacal faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxay qarax nooca miinada oo maanta lagu dilay gudoomiyihii deegaanka Garis Valley Cabdiraxmaan Axmed Garyare askar ilaalo u ahayd iyo dad shacab ah qaraxaani oo ahaa mid dugtiisa laga maqlay qeyb ka mid ah Muqdisho ayaa lala beegsaday marxuumka xilli uu ka soo baxay masaajid salaada Jimcaha uu ku soo dukaday aan ugu dhawaa xarunta degmadaas maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay qaraxaani ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allah u naxariistay gudoomiyihii deegaanka Garis Valley ee gobolka Banaadir marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare qoraal ka soo baxay gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay marxuumku waa mas'uul dadaal badan ku soo bixiyay sidii uu ugu shaqeyn lahaa bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan shacabka deegaanka Garis Valley waxaana uga baryeynaa in jannatul firdaws uu ka waraabiyo dhamaanteena samir iyo iimaan inaga siiyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish ayaa maanta ka qayb galay salaadii janaasada ee marxuumka waxaana isla galabta lagu aasay magaalada Muqdisho waxaana aaskiisa uu ka dhacay qabuuro ku yaalo deegaanka Garis Valley qaar ka mid ah heeladii gudoomiye Garyare ayaa duugta kadib la hadlay warbaahinta marka oo la u naxariisto marxuumka inta Allah u naxariisto sabarna Allah naga siiyo muddo nin dhalinyaro oo ahay nin deegaankan wax badan ka qabto oo ahay nin taariikh dheer ku loo ahay soo halgam oo ahay deegaankuna caamka oo yaani dadka u dhashay deegaanka marka maanta yaani waqtigiisa inta ku dhamaaday dabcan asagoo yaani maalin Jimcaha masaajidka soo baxay oo soo dukaday alxamdulillah ayaa waqtigiisa galay marka ninkan taariikhdiisu waa dheertahay taariikh badan waa soo halgamay deegaankuna yaani ummadda deegaanka degan wax badan wax weyn u qabtay ha noqdo deegaanku yaani ama ha noqdo amnaankiisa ama ha noqdo yaani howlaha degmada iyo mas'uul dhisay oo deegaanka dhisay iyo waxa uu qabtay wax la soo koobi kara ma ahan sidoo kale Cabdiraxiin Cabdullaahi Liibaan xogayaha degmadaasi ayaa isna warbaahinta la hadlay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore Allah u naxariisto gudoomiyihii degmadeena Garis Valley Cabdiraxmaan Axmed Cali geeri xanuun badan maanta iyadoo maalin shaqo ahayn anagoo wada joogno degmada gudoomiyihii amarka Ilaahay ku dhacay soo salaada khudbada ka soo baxay hadeertaana waxaan joognaa aaskiis Allah u naxariisto gudoomiye Cabdiraxmaan Garyare oo ahaa nin qaali nagu ah Garis Valley soo aasay meel fiican soo gaarsiiyay gacan ka xaq darna dishay waa ka tacsiyeynaa anagoo maamulkiisa ah geeridaas ku timid gudoomiyaheena qaaliga ahaa shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka mas'uulka ka ah Garis Valley oo uga tacsiyeynaa anagana waa iskaga tacsiyeynaa ehelkii iyo qaraabadana waa uga tacsiyeynaa si gaar ah gudoomiyaheena Allah u naxariisto wado ka fiicneed maanta soo qarankiisa u shaqeynaya gacan ka xaq daran dishay ma jirto wado ka fiican oo ku bixi lahaa oo ku dhiman lahaa afar bil ka hor ayay markii qarax nooca miinada lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo gudoomiyihii dhalinyarada ee deegaankaas askar iyo dad shacab ah al-shabaab oo ka hadlay weerarkaani ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa ka dhacay deegaanka Garis Valley lagula dilay gudoomiyihii deegaankaas iyo dad iskugu jira shacab iyo askar
madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Daniye wafdi balaaran oo hogaaminaya ayaa galabta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana dhanka kale magaalada ka socda kulamo gaar ah oo ay leeyihiin madaxda Soomaalida kulamadan ayaana looga hadlayaa shirka biri furmaya looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya Xanad Maxamed Karaama ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Daniye iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweyne Daniye ayaa ka qayb galaya shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo sida la filayo maalinta Abriil ka furmaya teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa hore u soo gaaray madaxweynayaasha maamulada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Jubbaland si ay uga qayb galaan shirka doorashada weli Muqdisho waxaan soo gaarin madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe taasi oo aan warar aan helnay sheegayaan in biri uu soo gaari doono Muqdisho shirka doorashada ee biri furmaya waxaa saldhig u ah heshiiskii 17 September 2020 ee arrimaha doorashada waxaana hore ugu baaqay ra'iisul wasaare Roble kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku wareejiyay hogaaminta howlaha doorashada iyo amniga dalka ra'iisul wasaare Roble ayaa hore u sheegay in ka go'aanta wax kasta oo horseedi kara inuu guuleysto shirka doorashada waxaa magaalada Muqdisho ka socda kulamo gaar ah oo yeelanayaan madaxda ka qayb galaya shirka doorashada ee maalinta Abriil la filayo inuu u furmo hogaamiyaasha Soomaalida ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isagoo shirkaani garwadeen ka ah ayaa xalay kulan la qaatay qaar ka mid ah madaxda maamulada ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale madaxda maamulada ayaa kulamo gaar ah la qaadanaya siyaasiyiinta mucaaradka iyagoo kala hadlaya shirka loo bilasan yahay biri madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed dhinaca kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhankiisa kulan la qaatay madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed dhammaan kulamadan ayaa looga hadlay shirka biri markaana Hiiraan waan laga dhex waday beero dhawaan ku dagaalamay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle ayaa maanta fashilmay waxaana dhanka kale tuulooyin hoostaga magaalada Beledweyne ka qaraxay dagaal u dhaxeeya labadan maleeshiya beeleed Cismaan Aadan Careys ayaa warkaan noo soo diray dadaal nabadeed ay wadeen xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Hirshabelle ee ka soo kala jeeda labada beel ee dirirta u dhaxaysay ayaa maanta guul daraystay kadib markii labada beel ay isku mari waayeen qaabka loo kala qaadayo ciidamada iyadoo labada beel maalintii shalay heshiis hordhac ay gaareen in xabadda la joojiyo ayna wada aqbaleen labada dhinacba in la wada hadlo balse la isku mandhaafay qaabka loo kala qaadayo ciidamada maleeshiyaadka ku kala sugan deegaanada dhanka waqooyi galbeed ee magaalada Beledweyne carruurta gobolka Hiiraan intii uu soconayay shirka nabadeynta labadan beel waxgaradkooda ayaa waxaa soo ifbaxday dagaal marka inuu ka qarxay deegaanka Belednuur ee ah deegaanka isku horfadhiya maleeshiyaadka maalmihii aynu ka soo gudubnay dagaalkan dhex maray labada maleeshiya beeleed ayaysan jirin maanta wax khasaare dhimasho dhaawac ee ka dhashay marka laga reebo rasaas xooggan ee la iswadaarsaday labada dhinac inkastoo dagaalka maanta dhex maray labada maleeshiya beeleed uu imaanayo xilli magaalada Beledweyne carruurta gobolka Hiiraan ay ku sugan yihiin xildhibaano ka soo jeeda labada maleeshiya beeleed ee dirirta ay ku dhex marayso deegaanka Belednuur inkastoo dadaalo nabadeed ee kol hore laga dhaxwaday labada beel ay noqdeen kuwo aan miro dhalin xildhibaanada ka soo jeeda labada beel ayaa dhawaan soo gaaray magaalada Beledweyne carruurta gobolka Hiiraan ayaa u yimaaday magaalada Beledweyne inay dejiyaan xiisada colaadeed ee u dhaxaysa labada beel ee wadaagta ah Cismaan Aadan Careys warbaahinta kulmiye Beledweyne faahfaahin dheeraad ah ayaa soo baxaya qarax lagu weeraray ciidamo ka tirsan Kenya oo marayay magaalada Mandheera Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ciidamo ka tirsan booliiska Kenya ayaa maanta qarax lagula egtay deegaanka Baanise ee degmada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya warbaahinta maxalliga ee Kenya ayaa sheegaysa in ugu yaraan 5 sargaal oo ka tirsan booliiska Kenya ay ku dhaawacmeen qaraxa isla markaana uu gabi ahaan burburay gaarigii ay la socdeen goobjoogayaal ayaa sheegay in qaar kamid ah dhaawacyada saraakiisha ay halis yihiin iyadoo xarumaha caafimaadka loo qaaday Edwin Mumbogo oo ah sargaal sare oo ka tirsan booliiska Kenya ayaa sheegay inuu jiro khasaare soo gaaray kooxdii weerarka soo qaaday isla markaana ay wadaan howlgalla ay ku baadagoobayaan gaariga booliiska qaraxa la egtay ayaa waxa la socday ilaa 15 askari waxaana uu ka soo dhaqaaqay deegaanka Baanise isagoo ku sii jeeday degmada Mandheera ciidamada booliiska Kenya ayaa bilaabay howlgalla ballaaran oo ay ku baadagoobayaan kooxdii weerarka soo qaaday iyagoo sheegay inay ka gudbeen xadka Soomaaliya iyo Kenya saraakiisha ciidamada booliiska Kenya ayaa weerarkan ku eedeeyay dagaalamayaasha Al-Shabaab dhawaan ay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan Kenya oo maraya magaalada Lamu ee dalka Kenya iyadoo halkaas lagu dilay 5 sargaal oo ka tirsan booliiska Kenya markaana Puntland
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland oo dhowaan muqdisho ku geeriyooday ayaa maanta aas loogu sameeyey magaalada garowe muscab maxamed yuusuf ayaa warkaa inoo soo diray magaalada garowe ee caasimada puntland waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland jenaraal cabdisamed cali shire oo shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya aaska qaran ee loo sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland cabdisamed cali shire waxaa kasoo qaybgalay madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi deni oo shalay dib ugu soo noqday garowe iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash wasiiro ka tirsan puntland saraakiil ciidan iyo weliba qaar ka mid a culimmada puntland qaybaha kala duwan ee bulshada garowe waxayna dhammaantood kasoo wada qaybgaleen salaadii janaasada aheyd ee marxuumka loogu tukaday garoonka diyaaradaha ee garowe madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi deni ayaa mar kale ugu tacsiiyey bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada puntland iyo guud ahaan shacabweynaha soomaaliyeed geerida jenaraal cabdisamed shire ilaahay subxaana watacaala naxariistii janno ayaan ilahay uga baryanaa sabir iyo imaan dhammaanteen naga siiyo yar iyo weynba gaar ahaan qoyskii xaasaskii iyo carruurtii iyo intii kale walaalaha ay qaraabad ahayd marxuumka runtii taariikhdiisa dadkii loo sheegi lahaa halka ma jooga waa intii taqaanay waa dadka u shaqayn jiray oo meeshuu ka shaqayn jiray oo sharafta iyo karaamada ku lahaa intuu hadda anigu aan xilka haynin wuxuu noo ahaa la taliya hawsha ballaaran oo puntland dib u habeynta ciidanka wuxuu ahaa udurdaxaadkii saraakiishii saldhigga oo ahayd ra'yiga iyo afkaarta isaga iyo jenaraal khaliif meelbigooda isagana xubinka ahaa markii ilaahay uu naxariisto inta kale oo dhan kale madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa isna u tacsiiyey bulshada puntland iyo guud ahaan shacabweynaha soomaaliyeed geerida ku timi allah u naxariistay madaxweyne ku-xigeenka hore ee puntland cabdisamed cali shire waxa uuna xusay qayb ka mid a taariikhdiisa waxaanu leeyahay anigu waxaan hawada u marinayaa reer puntland shacab iyo dowladba tacsi tiiranya waxaan leeyahay samir iyo iimaan khaasatan qoyskii iyo helay uu ka geeriyooday runtii reer puntland oo shacab iyo dowladba de waa qoyskii uu ka geeriyooday weeye sida caaqilku u sheegay waxaan leenahay samir iyo iimaan qodobka ku xiga waxaan leeyahay waa u ducaynaa ilaahay naxariistii janno ha siiyo ilaahay kitaabkiisa midigta ha uga dhiibo ilaahay godka ha u nuuro muscab maxamed yuusuf raadiyo kulmiye mahadsanid muscab shacabka ku nool xaafada ka tirsan degmada howlwadaag ayaa ka cabanaya biyo lagu soo furaya xilli kuwii roobkii dhowaan ka daay muqdisho xaafadooda uu buuxdhaafiyey farxaan maxamed xuseen ayaa warkan eegaya shacabka ku dhaqan xaafadda xawataako ee degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa waxay ka cabanayaan biyaha roobka ee fadhiistay waddooyinka xaafadahaasi shacabkani ayaa waxay sheegeen in biyihii fadhiistay waddooyinka lagu soo furay xaafadahooda qarkan ay u saaran yihiin in ay guryahooda ka barakacaan sidoo kale shacabkani ayaa waxay baaq u direen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir waxayna ka codsadeen in ay arrintooda soo farageliyaan isla markaana wax laga qabto waxaan cabasho ka nahay biyaha yaalla howlwadaag laanta xaawataako iskool xamar jadiid oon 20 sano ka qaxaynay oo dad nooga dhinto 4 qof oo waayeel iyo carruur loo nooga maqan yihiin hadeerna la leeyahay biyihii ka yimid hodan ilaa howlwadaag ilaa balaagsi oo daala yaalla la idinku soo furayaa waxaan gobolka ka codsanaynaa iyo dawladda dhaxaba inaan biyahaasna la ku soo furin la maareeyo qorshe kale loo sameeyo xoog iyo xoolaba la isu tago haddaan shacabnahay iyo haddaan dawladda nahayba oo annaguna xoolihii iyo nala weydiiyo adinkuna aad maskaxdaad ku wadi lahaydeen aad keentaan laakiin 20 sanaan qaxaynay oo ku baaba'nay guryo nooma dhisna xoog waa dad waa ku weynay duunyana waa ku weynay inaan hadeerna kaga sii darinaa idinka codsanaynaa dawladda marka hadda waxaan deganahay meel biyo gurigaygu meeshaas ku yaal 7 kalaan qaxay 7 kalaan biyo ka qaxay biyaha igu soo furin biyaha marda ma qaxayo marda kama qaxayo waxaan deganaa qol marda ma qaxayo biyaha hadii la igu soo furo magac waxay noqon doontaa biyo waxa ku soo furay marfinish biyana ku dhintay taariikhay noqon doontaa taariikhdaas ha qaadanin biyahaas anugu furin biyihii interlooga bakaare ka soo rogmaday ee guryaheena ay buuxisheen deegaanka aan ugu qaxnay guryaheena ijaar aan ka degannahay ayaa haddana waxaa dhibaato nagu haya niman ganacsato ah oo bira baabuur iibiya oo daala degan oo noo adeegsanaya muxuu ahay rag ay qaraabo yihiin oo maamulka ku jiraan muxuu ahay inay daala biyaha ku jira mar labaad
annagoo biyihii interlooga kasoo rogmaday ka qaxnay guryaheennii ka maqan ijaar kaga jirnay guryaheennii carruurteennii kaniic kala cararnay 3 qof hadda ka hor ay ku dhimatay ayaa haddana waxaa laga talinayaa in biyaha daala haddana xaafadda lagu barakiciyo oo guryihii laga qaxay aan dibdib looga soo noqonin. xilliyada roobka waxaa inta badan cabasho muujiyay shacabka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho kuwaasi oo saameynta ugu badan uu u geysto roobka. halkaan nagala socotaan waa keenan markaana warkii dibadda. xisbiga talada haya ee Mareykanka ayaa wajahaya mid ka mid ah culeysadii ugu adkaa abid. Ilhaan Cumar, Alexandria iyo Rashida Talib oo ka mid ah kooxda dumarka ee aqalka wakiilada Mareykanka kuwaas oo si weyn uga dhiidhiyay dulmiga Yuhuudda ee Falastiin. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa mar qura is arkay isagoo banaanka ka taagan fikirka ay qabaan siyaasiyiin badan oo ka tirsan xisbigiisa dimuqraadiga ah ee talada haya. kala qaybsanaan xoog leh ayaa soo baxday kadib markii uu bilowday dagaalkii Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ay socday in ka badan 12 maalmood. kooxda caanka ah haweenka aqalka Koongareeska ee Ilhaan Cumar ku jirto ayaa tusaale u ah kala aragtiduwanaanta xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan Israa'iil. madaxweyne Joe Biden wuxuu isagu muujiyay dhaqankii caadada ahaa ee Mareykanka marar badan ayuuna ku celceliyay sidii uu aaminsan yahay in Israa'iil ay xaq u leedahay tallaabo kasta oo iskaga difaacayso weerarada gantaalada ee Xamaas. intaas ayaa ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal wararkii Somali Life Media. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelka Somali Life Media, sii share gara warbixinta oo la wadaaga saxaabtaada, like saar muuqaalka adiga oo qaybta hoose ee commentiga nagula wadaagaya aragtidaada. mahadsanid.